tacsiba ka socota marka leeyahay caruurahooda asaaska caruurihiina iyo gabdhihiina iyo hablihiina iyo hooyooyinkiina iyo inamadiina dabada laga maro hadda waa ragiinii boqolayaashiina marka dabada laga maray okay iikeed marka waan tuuraya iikeed kuldiga waar naga turnaagta raqiis iikeed hadda way inaad hadlo okay hodanay Soomaaliyeed matalaysay gabadhaana waxay matalaysay Somaliland tartanku wuxuu ahaa 300,000 Somaliland hambalyo abaan leeyahay Soomaaliya istaaga laga riday Soomaaliya walaaqadaad weynteedii istaaga laga riday Somaliland to the wall way guuleysteen Somaliland hodanay adoo ooyaya deg ayr walaal adigu istur adigu ayr deg adoon hadlin qolka yaa laga baloogin hadaa rajo kaleeda si toos waa laga guuleystay Somaliland baa guuleysatay hambaliya hadaadan dhahaynin ayro hoos istur ayro deg istur ayr waxaan dagaalkii badar waa ka daran yahay laandarisku caadi bay usoo shaqo tageen macnaha dagaalka miidiyaha dagaalka xaafadaha ka cirka iyo dhulka cirraha duu daawanayana inaan gaarugoy geygii kastee guushayada jecel abal guunaban gaarugaya abal guunaban abal guunaban gaalugaya fiifi Somaliland qaraarweyntii ma yaacday inaan gaarugoy hambalya waxaan ahayn hanoo soo qorina guys halkan waxaan u sheegayaa reer Somaliland sharaf iyo karaamo ilaahay korkiina ha ka ahaado reer xamarka yaryar ee waxaan ku uri hadlayana ee waxaan ku uri af Soomaali garanayna eego dhaafa dhammaan hambalya soo qoro laandarisku lama hor istaagi karo xifaaltanka hadday media noqoto iyo hadday dagaal xaafadeed noqoto laandarisku caadi bay calankooda u difaacanayaan maantana halkaa waxaa lagu kufsaday oo laga adkaaday dowladdii madaxweynaha ka ahaa xasan sheekh caadi baa looga adkaaday walay bille hambalyo jamhuuriyadda barakaysan dalkaygu hadduu tashaday maxaa lagu diidan yahay Somaliland maxaa loo daba socdaa dalkaygu hadduu tashaday maxaa lagu diid anigu anigoo gabadha Somaliland baa la fiyanaya halkan waxaan ku leeyahay lagu baabiyey Soomaaliya caawa ugu diisay Soomaaliya maraq cabdi Soomaaliya maraq cab Soomaaliya